حلقات العودة بستان يتنزه فيه الوجدان، حلقات تخرج أجيالا تتباهى بهم الأزمان. حلقات العودة بستان يتنزه فيه الوجدان، حلقات تخرج أجيالا تتباهى بهم الأزمان، تتباهى بهم الأزمان، تتباهى بهم الأزمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، daawadayaal kusoo dhowaada barnaamijkeenii addiinu nasiixa. barnaamijkan waa barnaamij diineed, isla markaasna aan ku wacyigelinayno ummadda hadba aan isleenahay umuuraha ay marka loo baahan yahay in bulshada lagala hadlo lagu soo qaato qodob ka mid ah. maanta qodobka barnaamijka aan kaga hadli doono waa amniga ama ammaanka. waxaana nala jooga oo nagala qayb qaadan doona barnaamijka sheekh cabdisamed cabdulla cismaan. sheekh kusoo dhawow. baarak allahu fiik waa dhawahay walaal, jazaak allahu khayran. sidaa ognahay, dhibaatada amniga iyo ammaan daradu ay bulshada ku hayso, khaasatan dadka soomaaliyeed, waa mid aada u ballaaran. marka in laga hadlo oo la tilmaamo waxyaalaha lagama maarmaanka ah ee loo baahan yahay, maaragta haddii ilaahay ku rooyahay in la xuso, waxaa ka mid a nimcada ilaahay subxaana wa tacaala na siiyey ee amniga ah. nimcadaas marka inaan aysan noqonin mid gorgortan gasha ama lagu cayaaro. haddaba saan u fahanno mowduuca in badan aan ka fahanno, waxaan su-aasheeda koowaad sheekh aan weydiinaya ay tahay ama ku saabsan tahay, horta sheekho maxaa la yidhaahdaa amni ama kelmadda la yidhaahdo ammaan? waxaa laga yaabaa in dadku siyaabo kala duwan ay u micneeyaan, ama dhici kartaba in dadka qaarkiis kelmado kale u yaqaanaan nabad iyo xasilooni iyo wixii la mid ah. bal waxaa noo sheegtaa marka inaad noo caddayso kelmadda amni ama ammaan micnaheedu muxuu yahay. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. waad mahadsantahay walaal cabdiraxmaan, baarak allahu fiik. ammaanka ama amnigu runtii waa mowduuc aada iyo aad iyo aada muhiim u ah, gaar ahaan dadkeena soomaaliyeed, ummadda soomaaliyeed. waxaa la odhan kara waa dadka adduunka o dhan ba haddii la isku qaado malaha ugu baahi badan in amniga waxaa la yidhaahdo ama ammaanka la daraaseeyo. asbaabta keentay maaragtay inuu ina ka baxsado oo aynan haysanin maanta la darso, sidii loo soo celin lahaana maaragtay laga shaqeeyo oo falowgeeda la qabto. marka amnigu waa erey runtii qof walba uu fahmi karo oo aada iyo aad yani u jilicsan, oo dareenka caadiga ah oo qofku uu ku garan karo. waa xaaladda yani iطminaanka ama xasiloonida ah oo qofku uu dareemayo iyo cabsi la-aanta. waa ilaahay subxaana wa tacaala sidii uu markuu tilmaamayay nimankii quraysh ahaa, suurat lilaaf, rabbi subxana wa tacala suurat ilaaf, ilaafihim rixlat ashitaai wasayf falyacbuduu raba hada albayt aladi acamahum min juucin waaamanahum min khawf. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka quudiyey oo cunto ka siiyey gaajo, oo gaajo markaasi ma qabaan, dhinacaas ammaan bay ka qabaan. dhinaca kalena ilaahay subxaana wa tacaala cabsidii buu ka qaaday oo amni buu ugu bedelay ilaahay subxaana wa tacala. saas oo kale qur-aanka meelo fara badan buu ilaahay subxana wa tacala ku cabiray, oo isagoo labadaas eray oo amniga iyo khawfka yani isku bedelaya rabbi subxaana wa tacaala uu inoo sheegay. sida maalan marka ilahay u lahaa subxaana wa tacala, wacada allahu aladiina aamanuu wacamiluu الصaalixaati, wacada allahu aladiina aamanuu minkum wacamiluu الصaalixaati layastaklifanahum fi lard kama istakhlafa aladiina min qablihim walaa yumakinana lahum diinahum aladi irtadaa lahum walaa yubadilanahum min bacdi khawfihim amna. waxaad arkaysaa markaasi cabsida oo meesha laga saaro oo ilaahay subxaana wa tacaala uu ugu bedelay ammaan in ay tahay ayaa ku muuqanaysa. marka xaqiiqa ahaan waxa weeye waa kalsooni. ammaanku waa kalsooni qofka ama bulshadu uu ku kalsoon yahay, ama bulshadu ay ku kalsoon tahay in awoodaha ilaahay uu siiyey iyo nicmada ilaahay uu siiyey subxaana wa tacaala iyo deegaanka ilaahay uu siiyey
iyo yani wixii ilaahay uu siiyey ay ku raaxaysan karaan, ay ka miro dhalin karaan, ay adeegsan karaan oo isticmaali karaan wixii ilaahay uu siiyey oo nicmo ahaa, iyagoo markaasi cid kaleeto inay kusoo tacadido ama ay yani ka qaadato amnigoodii oo ka dhabqiso aanay ka baqaynin. ammaanka markaa haddaynu soo koobno sidaas baa lagu soo koobi karaa, inkasta oo runtii gudo ballaaranna uu leeyahay, macno koobanna uu leeyahay. بارك الله فيك شعب سمد. إلهي سبحانه وتعالى ما لبضن آيات بدن بوكا هادلي أمنيغا سيابا كلا دوان وأوغا هادلي وحان ربنا مركا هذا مفهومك قرآنيغا أمانك وكا هادلي الله سبحانه وتعالى. مثلا إلهي قرآن كوحو يري الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. نبي الله إبراهيم عليه السلام markii caruurtiisii uu ma aragtaa soo dejiyey meeshii la oran jiray Maka wuxuu yiri rabbi ilaahay weydiistay subxaanahu wa tacaala inuu caruurtiisii dejiyey biwaadin غayri dhi zarcin cinda baytika almuxaram ayuu soo dejiyey rabbi ijcal hada albalada aamina ilaahu beledkan aamin ka dhig. marka saan u fahanno mafhuumka ammaanka ama amniga bal noo sharax wax nooga tilmaam. sida aynu tilmaannay amniga ama ammaanku wuxuu leeyahay macne gaar ah oo marka u horeysa barta maskaxda qofka kusoo daadagayo marka la ammaan meeshaas ma ka jira qofku uu isweydiinayo ama uu garanayo. waxaa kale oo jira cilmi ahaan marka loo darsayo amniga ama ammaanka waxa la yiraahdo macne guud oo ka waasicsan midka isaga ah. kan gaarkaay waxa weeyaan waa ammaanka yani qofku inaanu cabsi u dareemeyn in jirkiisa ama xoolihiisa ama hantidiisa iyo gurigiisa waxa la midka aan cidina kusoo tacadin oo aan lagu xadgudbin, aan la dilin, aan xoolihiisa laga dhicin. ammaanka caynkaas ah waa macnaha gaarka oo ereyga inta badan loo adeegsado. hase yeeshee macnaha guud runtii markii ay de culimada ama culumta ijtimaaciga daraasaysa ama culimada islaamkuba ay fiiriyeen iyo bulshooyinka oo dhan culimadooda iyo dadka sunaacul qaraarka ay waxaa la isla fahmay oo runtii aad iyo aad loo qaatay in amnigu uu yahay macne aad iyo aad waasic u ah oo guda ballaaran. macnahaasi wuxuu noqonaya qofku inaanu cabsi aanu dareemaynin. marka cabsidaasi waxaad isweydiinaysaa xaggee bay ka imaanaysaa. dee cabsida waxay ka imaan kartaa maalan qofku inuu ka baqayo faqri, waxay noqon kartaa inuu cudur ka baqayo, waxay noqon kartaa inuu ka baqayo qolo kaleeto inay kusoo duusho oo haddii ilaahay ku roon yahay ay jir ahaan ama xoolihiisii iyo hantidiisii ay maarata dhibaato gaarsiiso. waxay noqon kartaa qofku in mustaqbalka uu ka baqayo, caruurtiisii uu baqayo, tacliintoodii uu baqayo, caynkaas oo kaleeto. macnayaashaas oo dhan marka waxaad maqlaysaa maanta haddii aad ama idaacadaha ama saxaafadda aad fiirisid iyadoo maarata leeyahay مثلا food security oo kaleeto baad arkaysaa الأمن الغذائي، الأمن الاجتماعي، الأمن الصحي، الأمن العسكري، السياسي، التعليمي. يعني وحو نقضي waxa la yiraahdo amnigu يعني فنون aad waasic ah oo يعني ay tahay shaqadii ay dawladdu ay qaban lahayd ama bulshada ay u istaagi lahayd oo يعني horumarkeedaba aabaha iyo saldhiga u ahaa ayaad arkaysaa maarta inuu noqonayo. marka quraanka cadiimka ilaahay subxaanahu wa tacaala marar badan waxaad arkaysaa in uu isku xirayo waxa la yiraahdo amnigaas noocaasa oo qofku in jirkiisa loogu tacadiyo uu ammaan ka yahay iyo amniga ah al-amn al-ghidaa'i oo kale iyo al-amn hatta al-iqtisaadi oo bulshadu maaragtay in iqtisaad ahaan iyo ganacsi ahaan iyo arrimada caynkaas oo kaleeta ay u sugan tahay oo ilaahay markuu leeyahay subxaanahu wa tacaala falyacbudu rabba hada albayt alladii atcamahum min juucin wa aamanahum min khawfin. waa laba arrimood labadaba amni ah weeyaan. نبي الله إبراهيم عليه السلام أيضا هذا الشيء سي وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. وحا أركز إنه اسكحر يمر والباء يعني إن أي هلان أمنجي يا استقراركي هي إن أي هلان وحا لي هذا يعني كلسوني أنا فقري يا دباتو عين كاس أنا كبغينين. وحا أيضا مركز صور راعي مثلا حاجة عافمات أو كلا تقف هذا عذر كبغيو oo bulshadii maarata ay tahay bulsho u nugul cudurradii iyo wixii caynkaas oo kaleeto dee amni ma qabto. saa darteed baa arkaysaa nabigeenu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waati u lahaa man asbaxa minkum aaminan fii sirbi mucaafan fii badani
cindahu quutu yowmihi fakaأnamaa xiizat lahu dunya bixadaafiiriha. wuxuu leeyahay nabigu sala allahu alay alih wasalam qofkii idinka mid ah oo ilaahay subxaanahu watacaala uu siiyo oo ku waaberiista isagoo jirkiisa ammaan u haysta oo macnaha cid ku tacadiyeysa ama dilaysa ama dhiiggiisa daadinaysa ama xubnihiisa yani dhaawac gaarsiinaysa ama caynkaas aanay jirin, mucaafan fii badanihi jirkiisa yani caafimaad u qaba oo sixadiisii iyo maaragtay dhinacaas maarata caafimaad ka qaba, dhinaca kalena maaragtay aaminan fii sirbihi yani beeshiisii iyo dadkii maaragtay qoyskiisii iyo naftiisiiba aamin u ah, haddii ilahi ku ron yahay dhinacanna caafimaadkiisii aamin u ah, dhinaca kalena cindahu quutu yowmihi maalintaas wixii uu heli lahaay oo cuni lahaay oo quudan lahaa isaga iyo ciyaalkiisa iyo cidduu mas-uul ka yahay ay u sugan tahay. wuxuu leyahy nabigu sala allahu alay ali wasalam adduunkiiba in loo soo kulmiyey baad moodaa. kuwa kaloo aynu tilmaaminay xataa oo ama tacliin ha noqoto amba ha noqoto waxa la yidhaahdo alamn caskari alamn siyaasi, kulligood waxay soo hosgelayaan saddexdaa kama baxayaan. meesha nebigu sal alay waslam hadalka nebigu waa jaamic maanic weeyaan. markuu nebigu ina leeyahy sal alay wasalam saddexdaa arrimood qofkii haystaa adduunyo waa haystaa, waa sidaas weeyaan. marka dhinaca markaynu ka eegno amnigu waa amniga adduunka markaynu ka hadlayno. waxaa kale oo iyaduna jirta alamn alukhrawi alamn addiini oo qofka muslimka ah uu dareemayo, xataa haddii arrimihii kaleeto oo dhan oo amniga aynu hadda kusoo tilmaannay oo cuntadii iyo haddii ilahay ku ronaya wixii la odhan jiray sixadii iyo xataa haddii aanay sugnayn, laakiin qofku diiniyan uu diintiisa u saxsan tahay oo ay u fadhido oo ilaahay subxaanahu watacaala xaggiisa aanay yani uusan dhibaato ka filanaynin, oo haddii uu geeriyoodo uu og yahay in ilaahay subxaanahu watacaala uu raalli ka yahay, waxa weeye qofkaasi ammaan buu ku sugan yahay. meesha ilahay uu ka leeyahay subxaanahu watacaala nabiyullahi ibrahim alayhi salaam markii uu weydiiyey ayu lfariiqayni axaqu bilamni in kuntum taclamuun, markaasuu ilahi wuxuu ugu jawaabay subxaanahu watacaala ama nabiyullahi ibrahim mufasiriinta labadaba way yidhaahdaan in uu yidhi aladiina aamanuu walam yalbisuu iimaanahum bidulmin ulaa'ika lahum اlamnu wahum muhtaduun. yani dadka iimaanka laga helay oo iimaankoodii markaasi wax burinaya oo shirki iyo gaalnimo ah aan ku dheehin oo aan ku darin, waxa weeye kuwaasi amni ayay leeyihiin maalinka aakhiro oo ilaahay subxaanahu watacaala agtiisana iyaga ayaa hanuunsan. meesha waxaad ka arkaysaa markaa qofka haddii aanu muslim ahayn dee marnaba amnigii ukhrawiga ahaa ma heli karo, oo amnigii diiniga ahaa ma heli karo, oo amnigii caqadiga ahaa ma heli karo, oo waxa weeyaan qofku wuxuu noqonayaa adduunka laga yaabo in loo raaxeeyo oo ilahayba subxaanahu watacaala sida aayadda hadda aad bilowday oo nabiyullahi ibraahim calayhi salaam weydiiyey caruurtiisa markii uu beledkaa dejiyey yidhi ilaahay oo beledkan waxaad ka dhigtaa mid nabad ah. ilaahay wuxuu ka baryey subxaanahu watacaala kuwa ilaahay rumeeyey inuu amnigaa siiyo. ilahay waa ka diiday subxaanahu watacaala, wuxuu yidhi yani xataa kuwa gaaloobayna waan siinayaa, man aamana minhum qaala waman kafara, xataa qofkii gaaloobana amnigii waa la siinayaa, umaticuhu qaliilan yani in yar baa maarta la siinayaa uma adaruhu ilaa cadaabi الnar. soo arki maysid wabisa almasiir. yani inta adduunka la joogo ilahay irsaaqadiisa waa loo siman yahay, asbaab bay leedahay lagu gaaro oo lagu hanto, amniga waa loo siman yahay. dowladdu haddii ay cadaalad tahay xataa haddaanay muslim ahayn way sugnaan kartaa, amnigeedana way sugi kartaa. laakiin dowlad muslima baa laga yaaba inay asbaabtii amniga lagu sugi lahaa intii ay yani ka boodo markaas inay maarata meesha ay ka baxdo. marka amnigu yani dhinacyadaas oo dhan waa u taabanaya, mid ukhrawiya buu noqonaya, mid dunyawiya buu noqonaya, mid muslimiintu ay leeyihiin buu noqonaya, mid gaalada iyo muslimiintu ay u siman yihin buu noqon karaa. بارك الله فيك شيخنا. حقيقة سيدا يعني أو تفصيلي waxaa marka muhiim ah in wax laga taabto maadaama ilaahay subxaanahu watacaala amniga yani nicmo ay tahay ilaahay uu dadka siiyo lana siin karo, gaalana la siin karo haddii la yimaadaan asbaabtii, dadka muslimiintaana la siin karo qoladii hadba asbaabteeda la timaado. marka ahmiyadda uu leeyahay amniga waxaa laga yaabaa in badanoo dadku inaysan ku baraarugsaneyn, laakiin ilaahay subxaanahu watacaala aayaadka qur-aanka oo aad hadda akhrisay iyo aayad kaloo qur-aan ilahay ku yidhi wadaraba allahu mathala qaryatan kaanat aaminatan mutma'inatan ya'tiiha risquha. marka waxaa ka horeeyey arsaaqad la bixiyo, waxaa ka horeeyey amni in la siiyey qaryada. nimcada ugu horeyso ilahay ku galadaystay inay tahay amni. tii hadda nabiyullaahi ibraahim aayaddii aad akhrinaysay waxay ahayd rabbi ijcal maaragta hada albalada aaminan, markaasaa warzuq ahlahu min athamaraat gadaal bay ka timid. irsaaqadda waxaa ka horeysa ammaanka. meel aan nabad ka jirin waxa weeye irsaaqadda dacmigeeda lama heli karo. ayib marka ahmiyadda intaas la eg maadaama amniga leeyahay
waxaan jeclaan lahayn in aada noo tafaasiiliso ahmiyaadka kale ee amniga uu leeyahay, dadku waxyaalaha ay ku gaari karaan, qaabka kale oo maaragta haddii ilaah ku rooyahay amniga loo yani ay u fahmi lahaayeen ummadda. baarak allahu fiika. waa sidaa u tilmaantay weeyaan. runtii ammaanku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ugu muhiimsan oo nolosha aadamaha ay u baahan tahay, ama ha noqdo qofku fardi oo keligiis ah, ama ha noqoto bulsho guud ama ummad iyo nation ma aragtay meel degan oo haddii ilaahay ku roon yahay cadowgeeda leh, haddii ilaahay ku roon yahay yadidiiladeeda iyo niyadeeda iyo masiirkeeda meesha u socoto leh. waxa weeyaan ummad walba iyo fardi walba wuxuu u yahay ammaanku waxa ugu muhiimsan oo qofka bini aadmiga ah iyo bulshaduba ay ugu baahi badan tahay ama ay u baahan tahay. nabigeena salawaatu ullahi wasalaamu calayhi ammaanku wuxuu ka mid ahaa waxyaabaha ugu waaweyn oo mar walba uu nabigu hadal hayn jiray sala allahu alayhi waalihi wasalam. wuxuu ka mid ahaa waxyaabaha uu ku taami jiray nabigu sal allahu alay slam in uu sugo oo uu dhidibada u taago. waxaad ka arkaysaa rasuulkeena salawaatu ullahi wasalaamu calayhi wuxuu leeyahay wallahi layatimana hada alamru xataa يعني يمشي الراكب من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه. wuxuu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wasallam markii rag saxaabada kamid u yimaadeen iyaga oo cabanaya oo nimankan gaalada rasuulka ilaahay ama habaar ama yani in ilaahay xal kale uu keeno subxaanahu wa tacaala ay nabiga weydiiyeen sallallahu alayhi wasallam. wuxuu nabigu ugu jawaabay sallallahu alayhi wasallam markuu la soo hadlay ka bacdi, wallahi ilaahay arrinkan waa uu sugayaa. arrinka la sheegay waa maxay? waa diinta. xataa diintii ma sugnaan karto oo laguma dhaqmi karo oo ma dhaqan geli karto haddii amni iyo ammaan iyo istiqraar aanu jirin oo bulshadu aanay sugnayn oo aanay fadhiyin. markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam de wuxuu ku yidhi ilaahay arrinkan dhidibada ayuu u taagayaa, ilaahay waa taam yani ayuu ka dhigaya, waa kamilayaa. xataa uu kasoo safro qofku Sancaa isagoo Xadramawt laba magaalo oo yani kala durugsan weeyaan, isagoo wax uu ka baqayo ilaahay subxaanahu wa tacaala aan ahayn aanay jirin, iyo maaragta de wixii caadiga qof bini aadmihi uu ka baqi jiray. marka qofku haddaanu nabad haysanin, haddaanu ammaan haysanin, haddaanu istiqraar haysanin, haddaanu kalsooni haysanin, nolol kuma raaxaysan karo, cunto uma dhamayso, maba shaqaysan karayaba. yani qofka waxa weeyaan waxba ma soo saari karaba. haddii ammaan uusan helin dowlad ma istaagi karto, hadday istaagtana ma jiri karto. haddii ammaan aan la helin qofka bini aadmiga ah taqadum iyo tatawur ma samayn karo, fardi ahaan uma samayn karo. oo waxa weeyaan waxaa shardi u ah inuu qofku tatawur shakhsiya uu sameeyo, waxa uu ah inuu qofka ammaankiisa u sugan yahay, cabsi inaanay qofka ku jirin. bulshaduna waa caynkaas oo kaleeto. haddii amni aanu jirin oo istiqraar aanu jirin oo xasilooni aanay jirin, waxa weeyaan bulshadaasi ma horumari karto. dhinac sanaaco iyo wax soo saar kama horumari karto, dhinac ziraaco iyo beerasho iyo xoolo tacbasho kama horumari karto, xag camaaro iyo guryo dhisasho iyo magaalooyin iyo aasaas iyo buundooyin iyo haddii la kuna biyo xireenno iyo caynkaas kuma fikri karto. xag tacallum iyo cilmi iyo waxbarasho yani ma hanan karto. cilmi ma gudbin karto oo caruurteedii xataa wax ma dhaxalsiin karto, sababtoo qof walbaba tiisi buu u yaaban yahay. qof walba wuxuu ka fikirayaa maalintaasi yani ma nabad gashay mise ma aadan nabadgelin buu ka fikirayaa. marka ammaanku waxaa la oran karaa waa sirta lagu horumaro wey. horumarba haddii aad ka fikeraysid ama shakhsi ha noqdo ama bulsho ha noqdo waxaa sir u ah oo saldhig u ah oo siid iyo haddii ilaahay ku yahay unuga uu ka bilowdaba ah, waxa weeyaan waa ammaanka iyo istiqraarka. haddii qofku istiqraar aanu helin oo xasilooni iyo amni aanu helin oo cabsi ay ku jirto, saddex arrimood mid buu samaynaya. ama wuxuu yeelayaa qofkaasi inuu isolated noqdo oo qof bulshadii ka dhex go-ay oo intiwaa uu ku dhacay oo keligiis yani goonidiisa u soconaya oo cabsanaya oo dadkii iska difaacaya oo cudur uu ku dhaco inuu noqdo. iyo imaa in uu qofkaasi noqdo mid bulshadii cadow ka aho isagiiba la diriraya ama dilaya ama qarxinaya ama rabsho samaynaya ama caynkaas oo kaleeto. iyo imaa inuu cararo oo bulshada dhanba ka haajiro isaga tago. inta badanna bulshooyinka haajira oo dadka ma aragtay kala firdha oo yani ka guura meesha ay deganaayeen, waxa salka u ah waxa weeye waa amni darrada weeyaan. dadku meesha ay degan yihiin hadday amni ku haystaan oo istiqraar ay ku haystaan, xataa haddii ay tahay meeshaasi garoon cidlo ah, dadku waxay ka dhigi karaan meeshaas meel nolol ay suuragal ka tahay. haddii ay jannada ku dhex nool yihiin dadkaasi oo amni ay ka waayaan, waxa way se uga carari lahaayeen ayay maaragtay ka fikirayaan. marka runtii waxaa la oran karaa ammaanku ama ammaan darradu waa sababta innaga haddaynu Soomaali nahay meel walba oo adduunka koonradiisa ka mid ah, geesaha adduunka meel walba oo ka mid ah maanta aad tagtid aad qof Soomaaliya ordaya aad ugu helaysid.
hooyo Soomaaliya ilma gacanta haysa aad ku arkaysid maxaa keenay oo kalifay inaynu saa u kala yaacno aynu kala firdhano aynu kala cararno dhulkeenii lana ku soo kari waayo aynu joog weyn waa amni darrada weeyaan waa arrin maarta aad iyo aad u cad weeyaan taasna waxay keenaysaa markaasi in qofku ama bulshadu wixii input ahaayo wadankiisa uu gelin lahaa oo horumar ahaa oo taqdiim ahaa iyo horumarin uusan yani samaynin qof walba waxa weeyaan markaasi noloshiisa meesha ula carar karo ayuu ula cararaya baarak allah fiik waxaa soo qaaday arrinta Soomaaliya iyo in Soomaalida adraafta adduunka oo dhan lagu arko amni daradana ay keentay طيب maxaa kalifay amni darada Soomaaliya ka dhacaysa maxay dadkeedu u fahmi laayihiin amni daradan haysata sheekho waxa weeye runtii waxaa jira maanta inaan la kala garanaynin midka balaayada wada amni darada ka shaqeynaya iyo midka daxyada ah oo dhibaatadu ay soo gaarayso dadkii waa wareersan yihiin qof markii la dilo dadku waa kala yaacaya waxaa la sheegayaa jabhado iyo calooshood u shaqaystayaal iyo South African iyo maaragta hadii la ku idmaayo jawaasiis iyo balaayo wax disha iyo kuwa diintu maaragta ku gabanaya iyo inaan dadka la kala garanayn wax amniga wada bulshada dhexdeedana laga fuliyo amni darada marka yaa mas'uulka amni daradan Soomaaliya ka jirta barakallahu fiika arintaasi horta waa arin u taala ummadda Soomaaliyeed wax garadkeeda oo dhan inay maaragta ay isweydiiyaan la sameeyo hadii ay ku roon yahay kulan heer national ah oo ummadda Soomaaliyeed oo dhan in isku timaado la darso xaqiiqatan la darso arintan amaanka yani iyo waxaan saldhigaba u ah yani istiqraar la'aanteena iyo dawlad la'aanteena iyo horumar la'aanteena iyo nabad la'aantan in haysata waxa saldhig u ah waa amni la'aanta usan amniga sugnayn marka ummadda Soomaaliyeed oo dhan wax garadkeeda culumadeeda aqoon-yahankeeda hoggaankeeda mid dhaqan mid siyaasadeed bay u taalaa in intii la isku yimaado la yiraahdo warmayo horta mushkiladu meesha ay ka jirtay waa amni daradan sidee baynu u samaysan karnaa afgarad ammaankeena aynu ku sugayno ila ibn aadam baynu nahay wada hadlan quraanka manihin xayawaan manihin bahala manihin waxa nahay dad ibn aadmi ah oo ilaahay subhanahu wa ta'ala nolol u ka suura galiyo aqli uu galiyay ibn aadamkuna way wada hadlaan deetana wax un bay ku heshiiyaan wax un bay isku afgartaan haday isku afgaran waayana waa isugu soo laabtaan haday khaldaan waxa way marka amnigu waxa way wuxuu mas'uuliyad ay ka saaran tahay dawladda ammaan baa ka saaran dawladda markaas jirta ammaan baa ka saaran سادرتد رسولك صلوات الله وسلامه عليه مركو يسوى أها هجاميها بالشدة المسلمين تأه وحو آدي آد حوج أساري جري أمني وإنه يهي مد سجن أو بالشدة سي أي تهي يعني أي نقطة بالشدة إسلام كأم مسلمين تو بالشو أن وح خلل وحاجة أمان كهي أنو كده حتى النبي صلوات الله وسلامه عليه مركي ومجالات المدينة ويمد أو دولة دي سي عردن كهيد وأساسي wuxuu nabigu xataa heshiisii la galay dadkii gaalada ahaa muslimiinta aan ahayn nimankii yahuudda ahaa meesha joogay ayuu nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi heshiis la galay si amaanka loo ilaaliyo oo loo dhowro wuxuu nabigu sallallahu alayhi wasallam alayhi intii xataa aanu soo hijroonin intii xataa nabinimada aan ilaahay subhanahu wa ta'ala ku marnaysanin rasuulkana sallallahu alayhi wasallam alayhi waxa jira heshiisyo uu ka qayb galay ila nin weyn oo odaya oo wax garad ah oo dadka hogaankooda kamid ah ahaa nabigu sallallahu alayhi wasallam hatta qabla nubuwatihi marka nabigu sallallahu alayhi wasallam heshiisyo baa jiray fi daar Abdullah ibn Jad'an oo kaga qayb galay xilf al-fudul xilfigi ama heshiiskii la oran jiray oo nabigu leeyahay sallallahu alayhi wasallam wallahi waxaan xaadiray goob joog ahaa heshiis lagu galay guriga Abdullah ibn Jad'an oo ma aragtay maanta hadii isagii oo kale la igu yeerana waan xaadiri lahaa buu nabigu sallallahu alayhi wasallam maxaa lagu heshiiyay waxa lagu heshiiyay in dulmiga la iska qabto qofka dhaalimka aan la iska qabto midka laga gardaran yahayna loo hiiliyo oo loo gargaaro waxa way marka dawladda mas'uuliyad toos ah ka saaran Abdullah ninka la oran jiray Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu as-Siddiq markii uu xilka saasi u qabtay hadalkii ugu horeeyay uu ku khudbeeyay waxa kamid ahaa yani cadaaladda marka uu ma aragtay ka hadlayo wallahi yani kiina xooga badani agteeda wuxuu ka yahay mid daciif ah ilaa aan ka soo qaado xaqi oo aan u celiyo ma aragtay kii uu ka xooga badnaa kaas xooga yar oo laga xooga badan yahay ayaa wuxuu yahay ma aragtay mid xoog badan markii aniga aan joogo meesha maxaa yeelay ana u hiilinaya oo garabkiisa ah waxa way marka runtii dawladda xil aad iyo aad u ballaaran baa ka saaran inta badan dawladuhu waa og yihiin in xil uu ka saaran yahay ammaanka laakiin mushkiladu waa maxay mafhuumka
iyo waxa looga jeedo ammaankaba inaanay u sugnayn u caddayn baaba laga yaabaa taas waa qodob waxaa laga yaabaa inaanay haysanin vision inaanay lahayn oo ay yani aysan hayn wax vision ah ama ru'yo ah ama aragti ah oo xeel dheer oo yani sidii loo xallin lahaa mushkiladan ammaanka aanay ma aragtay aan rootskeeda iyo xididadeeda iyo mushkiladu meesha ay salka la gelayso aan la baarin ee si guud ma aragtay la yiraahdo boolis ha la sameeyo wiilal xagga ha loo diro ama Ethiopia ha loo diro ama Djibouti ha loo diro ama caynkaas oo kale ta la soo dabaro dharna ha loo geliyo ma dharkaas wax xalinaya tuuto waxa ma xalinayo waxa loo baahan yahay waa maxay waa dadka hoggaanka ahi horta inay aragti leeyihiin vision qoran ay leeyihiin ay markaasi meeshan soo dhigtaan waa mushkilada intaasi la eg ba horteena taala oo de akalat al-akhdar wal yabis wax walba baabiisay cuntay oo ummadii Soomaaliyeed intaasi la eg ba horteena taala oo de akalat al-akhdar wal yabis wax walba baabiisay cuntay oo ummadii Soomaaliyeed dhulkii ka saartay oo dawladii adduunka ina ka reebtay oo ina qixisay oo ina yani hagaas ina ka dhigtay oo kaliftay maantay bal u fiirso in Kenya iyo hadii ilaahay ku roon yahay Ethiopia iyo kuwii aad tilmaantay dawladaha kale ee dariska ah ama Afrikaanka ah in ay maanta iyagii intay inoo yimaadaan la leeyahay ma aragtay hawaardeeyeen maxaan ku radaa qofkii hebel ahaa ama ammaankii meeshaasi ha sugan marka Soomaaliya oo dhan ma waxa laga waayay inay airportka مثلا ammaankiisa ay sugaan waa wax runtii shay ah oo ceeb ah weeyaan war waxay ahayd waxaan intii laga fariisto oo la darso oo mushkiladu inta ay la eg tahay iyo baaxadeeda intii la soo bandhigo in la yiraahdo sidee baan u taakal garaynaa mushkiladu intaas la eg tahay sabab u taakal garaynaa marka runtii waxa ugu weyn oo aasaaska u ah xalka mushkilada amnigu waa maxay waxa weeyaan koow in cadaalad la helo haddii cadaalad aan la helin oo qofku uu dareemayo dulmi ka shaqaynayo amniga ka caawin mayo dawladda ma saboor garanayo ma saacidayo ma soo sheegayo xataa midka dhibaatada sameynaya waxa laga yaabaa inuu gurigiisa ku qarxiyo ama uu arkayo aanu dan iyo hela kala hayn maxaa yeelay wuxuu dareemayaa qofkan madluumi yahay dareemaya inuu dhaalim madluum yahay buu dareemayaa oo la dulmiyay waxa laga yaabaa in cidii dulmigaas u geysatay ay dawladda ama ku jirto ama ay link la leedahay ama ay halka degan tahay dawladda waxba ka qaban weyday markaas qofku wuxuu dareemayaa ma aragtay maxay in yani waxba aysan ka gelin haddii amnigu awalba anu amni ma haysan buu leeyahay awalba anu madluum baan ahaa waa dulmana maxaa iga galay buu oranaya marka amniga iyo cadaaladdu waxay isugu xiran yihiin sida labada silsiladood isugu xiran yihiin markii Hormuzan ninkii la oran jiray oo nimankaas hoggaanka u ahaa nimanka Persianka ama Furuska nimankii la oran jiray la soo qabtay oo Umar loo keenay radiyallahu ta'ala anhu waxa la yiraahdaa waxa loo keenay Umar oo intuu de jubad yar oo haysay intuu maarta la baxay masaajidka iska seexday ama riwaayadaha qaar kood geed yar hoostiisa iska seexday markaas ninkan oo de boqor sidiisii loola tacaamulayo oo taajkiisii loo soo galiyay oo caynkaas oo kale tabaa loo keenay markaasuu yeen aaway ninkii ma artay dawladdeedii riday oo hadii ay ku roon yahay dawladda Roomaanka riday oo adduunka oo dhan dawladda ugu xoog badneed maanta ninka hogaaminaya wuxuu filayaa ninkaas in meesha uu degan yahay ma dahab bay ka samaysan tahay ma yaaqut bay ka samaysan tahay ma garanayo wuxuu isleeyahay ciidamada iyo albaabada ka sokeeya imisabaad si ma artay yani waxa loo geeyay nin meel iska hurda oo waliba aan waardiye lahayn waardiyihiisii buu yiri waardiye male baa la yiri markaas wuxuu yiri isagana hadalka oo loo tiriyaa ninkan oo loo tiriyaa wuxuu yiri xakamta fa'adalta fa'aminta fanimta waad xukuntay cadaalad baad ku xukuntay markaasaad waxaad heshay maxay ammaan baad heshay ammaanka markaa heshayna nabad baad u seexatay isagu ma samayn karo sidaas isagoo dawladdiisa jooga oo dawlad xoog badan ahayd oo intaa soo jirtay oo cariiq ah oo horumar weyn gaartay oo ka horumarsan dawladda muslimka yani dhinaca horumarka maadiga marka la fiiriyo laakiin haddana ma aanu yeeli karin waxaas oo kaleeto mafhuumka uguma jirinba waxaa marka ku muuqanaya dadku bulshadu haddii cadaalad ay hesho waxa weeyaan ammaanku waa sugmaya qof walba ayaa ownershipka dawladdaasi wax ku tirsanaya oo oranaya waxbaan ku leeyahay maadaama dawladdu ay ii garsoorayso ammaanka waan helaya haddii maanta walaalkaa la dilo ama wiilkaaga la dilo oo aad og tahay in aadan nidaamka cadaaladda oo markaasi jira aadan ku soo yani dhigaaga ama xaqaaga aadan ku helaynin waxaad samaynaysaa wixii kale aad samayn kartid waxaad markaa samaynaysaa maxay wixii Soomaalidu oran jireen qofka aan uusan sharcigu ka reebin 5 furood baa ka reeba taas marka sharci noqonaysa oo qaanuun noqonaysa laakiin waxay ahayd sida saxda ah in dadku afgarad ay yeeshaan nidaamka cadaaladdu uu noqdo ma aragtay dawladdu ay ka shaqayso in waxa la yiraahdo looga ama sharcigu uu noqdo mid clear ah oo cadaaladda yani cadaalad ah oo diinta islaamka ku salaysan oo dadka u siman fulintiisa iyo ninka qaadiga oo garsooraha oo fulinayana uu noqdo qof kalsooni lagu qabo bulshada ay kalsooni ku qabto deetana enforcementigiisii iyo in la hirgeliyo waa booliska markaa shaqadiisii
iyo maxkamad iyo wixii la oran jiray hadii ay ku roon yahay yani dawladda ammaanka qaybta ammaanka ee dawladdu shaqadeedii weeyaan markaas iyaduna maarata ay sugto in sharcigii sidii loo xukumay oo loo sugay maarata loo sameeyo waxaa laga yaabaa in qofkii daalimka ah la soo qabto xabsiga la geliyo gadaal lagala baxo soo ma dhacdo in badan waxaa dhacaysa qofkii in haddii ilaahay uu ku roon yahay uu dulmi sameeyo oo qof uu dilo ama xoolahoodii uu dhaco oo magaalada iska joogo isagoo qori wato oo ciidan wato halka uu iska joogo oo cid soo qabanaysa aanay jirin waxaa laga yaabaa in laaluush uu bixiyo yani waxaas oo dhan marka waxay keenayaan maxay kalsooni darro iyo trustiga ama qofku kalsoonidii uu ku qabay dawladdan nidaamkan uu ku qabay inuu meesha ka baxo marka dawladdu waxa ay ku sugayso ammaanka oo ugu xooga badan waa cadaaladda waa aldarbu biyadi dhaalim qofkii dhaalimka ahaa gacanta in lagu dhufto oo la qabto oo ma aragtay dulmigu si nabiga uu yidhi sal alla alay slam unsur akhaaka dhaaliman aw madluuman yani in marnaba dulmi haddii meesha uu yimaado waa in la kala saaro waa in la gooyo keed yani arrintaasi oo ay dhinac u dhacdo ama qofkan loo hiliyo ama kan kale ma aragta arrintiisa ma aragta in waxaa ka mid ah dawladda mas-uuliyaddeeda arrintaa la xiriirta in bulshadii ay kalsooni ku abuurto dhalinyaradii ay ku abuurto kalsooni ay ku abuurto ruuxu tasaamux ay ku abuurto waxaan la yidhaahdo aarsiga iyo aargoosiga iyo qaniya kaa fujisa oo dadka soomaalida ay ku dhaqmaan iyo qayla gar dhaweysay iyo nimaan qaylin maxaan ku rahda hooyadii qadisa iyo sharciga noocaas oo dhan inagu aynu ku dhaqanno oo sharci badawi ah oo reebaadiye ah in meeshan laga saaro ummaddii loo gudbiyo tarbiyad la siiyo loo tarbiyeeyo oo loo rabeeyo sidii loo gaarsiin lahaa ummaddaasi ummad ku kalsoon nidaam reer magaalnimo ah oo cadaalad ah oo garsoor ah oo haddii ilaahay ku roon yahay qofku markii dulmi uu tirsado uu aadayo meeshii maarata uu garanayo meeshuu aadi lahaa ayaa maarata la doonaya uuna og yahay inuu ka helayo xaqiisi uu ka helayo haddii intaas markaa la helo waxay u badan tahay in haddii ilaahay ku roon yahay dawladdu ay markaasi hanato ummaddeeda laakiin midda ugu muhiimsan oo markaas soo haraysa waxa weeyaan waa qofka ama fardiga mas-uuliyaddiisii waxaanu sheegnay mas-uuliyadda dawladdu inay sidaa tahay inay cadaalad samayso inay qofkii daalimkaa qabato in haddii ilaahay ku roon yahay bulshadii ay ku rabayso oo ay ka shaqayso sidii dadku ay u qaadan lahaayeen kalsooni ay u noqon lahayen ummad jirta oo isku yani tirsanaysa nafteeda tirsanaysa hiqa iyo kalsooni qabta fardigana marka dowrkiisa muxuu noqonayaa qofka keligiisa ama qofka muslimka ah qofka muslimka ah waxaynu ognahay rasuulkeenu salawaatu ullahi wasalaamu calayh wuxuu aad iyo aad ugu celceliyey ama diinta islaamkuba de ay ku dhisan tahay qofka muslimka ah inuu yahay qof mas-uul ah oo mas-uuliyadda ay ka saaran tahay naftiisa iyo bulshadiisa labadaba nabigeenu salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waxa uu inoo sheegay yani in qofka muslimka ahi ammaanka uu mas-uulka yahay qaybtiisa wuxuu leey nabigu sal lla alay wasalam almuslimu man salima almuslimuuna min lisaanihi wa yadih wاlmu'minu man aminahu الnaasu calى dimaa'ihim wa amwaalihim wuxuu leey nabigu sal اllahu alيه waslm qofka muslimkaah waa qofka dadka kale ee muslimiintahi ammaan ay ka helaan afkiisa iyo adinkiisa mu'minna waxaa la yidhaahdaa qofka dadka muslimiinta ahi ay xoolahooda iyo dhiigooda ku aamini karaan haddii marka qof kasta fardi walba oo dadka muslimiinta ka mid uu sidaa iyo caynkaa uu yahay waxaa markaa soo baxaya maxay ummad kulligeed wada noolaan iyo walaaltinimo iyo cadaalad iyo haddii ilaahay ku royahay inaanay dhibaata isaga imaanan iyaga dhexdooda yani shaqadoodu ay tahay waxaa nabigu sal ly slm in badan ku celceliyey arrimaha noocaas oo kaleeta yani sibaabu muslimi fusuuqun waqitaaluhu kufrun wuxuu leey nabigu sala allahu alay ali wasalam almuslimu cala almuslimi xaraamun damuhu wa maaluhu wa cirduh yani qofka muslimka ah xoolihiisa iyo dhiiggiisa iyo xoolihiisa iyo sharaftiisa midna kuma tacadin kartid marka haddii la helo qofka muslimkaa mujtamaca muslimkaa qofka muslimka haddii laga helo inuu isagu dhinaciisa ku dhaqmayo diintii islaamka ammaankii uu ilaalinayo isaga ammaan laga helayo waxaa imanaysa bulshada oo dhan inay noqoto bulsho maxay kulligeed mujtamac aamin ah inuu noqdo oo qofku aanu cabsi dareemaynin oo qofku qof kale muslimka walaalkiisa aanu ka baqaynin ugama baqayo inuu naftiisa dhibaato u geysto ilaa wuxuu og yahay yani qofkaas in dhiiggiisu xaraam uu ka yahay marka aamin buu ka yahay wuxuu og yahay xoolihiisa inaanu qaadanayn maxaa yeele wuxuu og yahay in xoolihiisa yani xaaraam ay ka yihiin inuu qaato wuxuu ka aamin ka yahay in la xanto ama la caayo ama magacyo loo bixiyo ama haddii ilaahay ku ron yahay sharaftiisii la dhaawaco yani awaakhir suurat maxaan ku rahdaa alxujuraat ilaahay subxaana wa tacaala arrinta uu kaga hadlayo intaa haddaynu qaadano bulshadeenu waxay noqon lahayd bulsho nabad ah bay noqon lahayd bimacna alkalima marka qofka mas-uuliyad baa ka saaran dowladdana mas-uuliyad baa ka saaran labadabaas mar haddii ay iskaashadaan oo ay wada shaqeeyaan waxaynu helaynaa mujtamac muslim ah oo aamin ah oo dhinac walba aaminka ah baynu noqonaynaa
بارك الله فيك شيخنا runtii aad baa mowduucaas u tafsiilisay ahamiyadda ee amniga uu leeyahay waxaa jira Soomaaliya amni darro baahsan baa ka jirta oo meel walba taabatay guri walba gashay waa sax marka dhibaatadaasi dad Soomaali ah oo muslimiin ah ama loo garanay inay Soomaali yihiin oo heebtooda la yaqaan ayaa wada ama la adeegsanayo dadka amni darada wada ee bulshada ku dhex jira waxay ku dhex jiraan mujtamaca ah ka sheekayso fardigiisa iyo mas'uuliyiintiisaba dawladdiisaba amaanka oo mas'uuliyadda ka saaran yahay ayay ku dhex jiraan oo ku dhex dhuumanayaan oo waxa ka fulinayaan dabcan wadankii waa burbur badan baa ka dhacay dhibaato weyn baa ka dhacday dadku waa kala baahay hub badan baa ku soo ururaya waxyaalo badan oo dhibaatooyin oo annaga gaar aan u leenahay baan haystaa laakiin amni daradu waxay gaadhay qofka la garanayo inuu geystay dambiga oo la og yahay daalimka ee gacan ku dhiiglaha ayaa sidaa u sheegtay halkaas marayo aan waxba loo sheeganin haddii la taabtana qabiil dhan baa qabiil kale ugu go'aya oo ku baaba'ayo waxyaalaha asaasiyaadka diinta islaamkana waxaa ka mid ah in la qabto midka fidnada wado inamaa jazaau aladiina yuxaaribuuna allaha warasuuluhu wayascawna fi lardi fasaadan an yuqataluu aw yusallabuu aw tuqataca aydiihim waarjuluhum min khilaaf aw yunfaw min alard abaal kale malaha siduu ilaahay sheegay in la qabto wey in laga saaray wey wadanka dadkaas baa la haystaa oo guryihii jooga ilaahayna ummadda inuu u gargaaro oo dowlad wanaagsan barwaaqo roob maciisho wanaagsan in helaan bay rabaan sheekhu marka dowrkii fahamka ahaa fardi iyo mujtamac iyo dowladeedba waa ka maqan yahay meesha sidee lagu soo celin karaa in la fahmo musiibada meesha ka timid oo ah in dulmigii la reebi waaye daalimkiina la qaban waaye بارك الله فيك وجزاك الله خيرا runtii aad baad maaragtay u tilmaantay xaaladda aynu maanta maaragtay ku sugannahay Soomaali ahaan oo runtii xaalad yurta laha ah yani xaalad loo baroor diiqo aynu maanta ku sugannahay ammaankii dhulkeena qofkii waagi hore waxay ahaan jirtay dadku intay islaayaan baa ninkii uu dhibaato geysta ama dhibaatadaas qayb ka ah la dili jiray oo dhibaatadu ay saameyn jirtay laakiin waayadan dambe waxaa soo baxday in nin door la xusho nin doorka ninka ugu wanaagsan yaa laga dilaa baa laleeyahay magaalada soo dhex istaagaya markaasaa waad la yaabasaa yani waxaa la odhanayaa yaa ugu fiican oo magaalada laga dili karaa markaasaa waxaa la dilaya ama ninkii sheekha ahaa ama ninkii caalimka ahaa ama ninkii doctoorka ahaa ama ninkii hogaamiyaha dhaqanka ahaa ama caynkaas yani meeshii laga xuli lahaa qofka ugu mudan inuu noolaado baa waxaa la dilaya ugu mudan inuu dhinto aad moodaa in maanta la raadinayo maanta marka waa runtii waa xaalad aad iyo aad yani dhibaato u ah waana yani ammaanku waa nicmo ilaahay uu bixiyo ilahay waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala ummadda Soomaaliyeed iyo ummadda islaamka oo dhanba inuu ilaahay amni siiyo oo istiqraar rabbi uu siiyo subxaanahu watacaala oo deganaansho uu siiyo oo ilaahay subxaanahu watacaala colaada iyo dhibaatada iyo mashaqada iyo fitnada ilaahay uu ka qaado subxaanahu watacaala mas-uuliyadda saynu tilmaanay hadaayeeto يعني qofka iyo bulshada labadaba qofka iyo dawladaba mas'uuliyad baa saaran bulshadana sidaas oo kale mas'uuliyad baa saaran bulshada mas'uuliyadda saaran waxa weeyaan waa tan uu nabigu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam wallahi la ta'khudunna bi yadi adh-dhalim aw la yushikanna Allah yani an yunzila alaykum 'adaban yani sallam thumma tad'uuhu fala yastajibu lakum waxay yani waa inaad qabataan qofka dhaalimka gacantiisa unsur akhaka dhaaliman aw madluman waa inaad qabataan qofka dhaalimka gacantiisa ama ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu idinku keenayaa ciqaab iyo cadaab dadka oo dhan wada saameynaya markaasaad yani haddaad ilaahay baridaan oo ilaahow naga qaad xataa aad tirahdaan gacmahaad cirka u taagtaanna aanu ilaahayda ka aqbalayn subxaanahu watacaala yani waxay ka mid tahay in dadka aanay dhaalimka qabanin oo dulmiga ay isugu gargaaraan oo ay isugu hiiliyaan oo ninkii kibray oo qooqay oo haddii ay ku runyahay dadka leynayay uu tol iyo qaraabo uu yeesho waxyaabaha ilaahay dadka uu ku lacnado bay ka mid tahay oo ilaahay ducadana xataa subxaanahu watacaala uga diidan ka aqbalo saadada nabigu sallallahu alayhi wa sallam watii uu lahaa lacana allahu man aawaa muxdithan ilaahay lacnadiisu ha ku dhacdo
qofka muxdithka waxa la yiraahdaa qofka dambiga soo galay dhiigga soo galay baa la dhahaa waa qofka dhiigga intuu soo galay markaasi bahdiisi ama reerkiisa gadaal ka galaya ama oday dhaqameedkiisa gadaal ka galaya ama aabihiis iyo walaalihiis gadaal ka galaya oo ka maraya oo markaas iyaguna ay difaacayaan ay horay ka fariisanayaan nabigu wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wa sallam kaas difaacaya lacnad baa ku dhacday buu leeyahay nabigu sallallahu alayhi wa sallam nacuudu billahi min dalik marka horta waa nicmo ilaahay baana bixiya subxaana wa tacaala asbaab bay leedahay loo maro oo ammaanka lagu sugo oo yani nicmadaas lagu hanto sida nicmada irsaaqaduba risqigu uu u leeyahay asbaab iyo si loo raaso oo loo shaqaysto iyo xirfad uu u leeyahay ammaankuna maahan meel intaynu iska fariisano oo waxaynu rabno iska walaaqano inaynu oranayno markaasi ilaahu amnina siiy ilaahu amnina siiy ilaah inama siinayo haddaynu sidaa yeelo sababtoo ah waxa weeyaan wixii aasaaska u ahaa oo shuruuda u ahaa baynaan la imaanin waxyaabaha ugu waaweyn markaasi oo nicmadaasi zuuliya ama qaada ama dhabqiya waxaa ka mid ah dunuubta iyo macaasida sida aayadda hadday aad akhrinaysay oo kaleeto ilaahay subxaanahu wa tacala uu yidhi wadaraba allahu mathalan qaryatan kanat aaminatan mutma'inatan ya'tiiha risquhaa ragadan min kulli makan فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون waxaad moodaa Soomaaliya typical in Soomaaliya ay tahay ayadaasi ay ku socoto baan moodaa waa balad ammaan ahaa oo nabad ahaa oo mutmain ahaa oo xasiloona oo risqigiisu meel walba uga imaan jiray oo dadku ay shaqaysan jireen oo beerahooda ay falan jireen oo warshadahooda ay lahaayeen oo wax soo saarkooda ay lahaayeen oo risqi ku filan ay haysteen oo markaas ay ku kufriyeen oo ay dafireen ilaahay nicmadiisa subxaanahu wa tacaala yani haddaad dib ugu noqotid waayadii aynu nicmada haysanay iyo nicmada marka ay isbedeshay ilaa ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu ina baray nicmo dad ay haystaan ilaahay kama qaado oo ilaahay ma gardarayso dadka subxaanahu wa tacaala ina allaha laa yugayiru nicmata ma kana allahu mugayira nicmata ancamaha calaa qowmin xataa yugayiruu ma bianfusihim ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmo uu dad siiyey kama qaado ilaa iyagu horta naftooda ay bedelaan marka nicmadaas marka ay naftooda ka bedelaan oo ay kufri ku bedelaan soo arki maysid markaas baa waxa imanaya in ilaahay subxaanahu wa tacala uu ka qaado haddaynu marka backgroundkani dib ugu laabano ummadda Soomaaliyeed iyo haddii la kuro waagii kacaankii iyo dulmigii jiray iyo dhibaatadii dhacday iyo diinta ilaahay si looga tegay iyo xataa gaalnimo iyo ilaahay dafiraad la dafirayo iyo ilxaad soo ifbaxay haddaynu dib ugu laabano waxa inoo fasirmaya markaasi sababta la inoo imtixaamay oo imtixaanka inoo ku yimid ilaahay ma gardarayso subxaanahu wa tacaala ummad istiqraar haysata oo horumar haysata oo nabad haysatana sabab la'aan ilaahay kama qaado subxaanahu wa tacaala weliba haddii dadkaas xataa ay yihiin dad muslixiin ah oo wanaagii ka shaqaynaya iyo dad challenge garaynaya oo xumaanta ka shaqaynaya waxay u badan tahay ilahay inaanu qaadin subxaanahu wa tacaala iyo nicmada aanu ka qaadin laakiin haddii khabudku uu bato oo dadka dhibaatada ka shaqaynaya ay xoogga iyo qalabada ay yeeshaan way u badan tahay markaas in ilaahay subxaanahu wa tacaala nicmada meesha uu ka qaadayo waxa ugu weyn oo marka nicmadaasi yani cadowga ku ah nicmada amnigu waa ilaahay subxaanahu wa tacaala intiisii la garan waayo oo ilaahay cibaadadiisii iyo tawxiidkiisii iyo yani dunuubtii macaasida maarta la xalaalaysto waxaa soo raacaya oo iyaduna dhinaca kaleeto dhinac socda waxa la yidhaha dulmiga dadku haddii ay yani dhaalimka ay qaban waayaan sida hadda aad tilmaantay oo su-aashaada maarta ku jirtay oo qofkii dhaalimka ahaa wixii uu rabo maarta uu samaynayo oo qofkuu doono uu dilayo oo xoolihiisi uu qaadanayo oo banaanka uu marayo oo cid la hadlaysaa aanay jirin oo cid qabanaysaa aanay jirin ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu maqlayaa markaasi oo ajiibaya qofkii madluumka ahaa cabashadiis buu ilahay maqlaya subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid a tuqyaanka iyo kibirka iyo isla weynida oo maalan tabaqaad dadku inay qabaa'ilka qaarkood yani dadku intay qabaa'il kala noqdaan ama tabaqado ay kala noqdaan ama qowmiyado ay kala noqdaan qaarkood uu qaarka kale adoonsado oo uu yaso oo madaxa kaga istaago ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay u badan tahay inuu markaasi miisaanka uu bedelo oo dhinaca kale ilahay u rogo subxaanahu wa tacaala waxaa ka mid ah waxa la yiraahdo iqsaaga iyo dadkii bulshadu ilaa waxaan la yiraahdo dawladnimada iyo ammaanka iyo tharawaadka iyo hantida dhulka taala dadku waa wada leeyihiin in markaa dadka qaarkood la fasliyo laga cayriyo oo la fogeeyo sababtu waxay doontaa ha noqoto ama ha noqoto jinsigooda ama ha noqoto diintooda ama ha noqoto fikirkooda yani qayb un dadkii ka mid ah in la takooro oo markaasi dhinaca geeska la geliyo taasna waxay ka mid tahay waxyaabaha keena ma aragtay dadku in ay haddii ilaahay ku royay nicmadii ay waayaan waxaa ka mid istibdaadka iyo ninka xaakimka ahi inuu kaligtalis noqdo oo dictator uu noqdo oo ummadii markaas aanu maqlaynin oo dadka ahlu xalliga iyo walcaqdiga aanu maarata taladooda aanu qaadanaynin waxay ka mid tahay maarata waxyaabaha ammaan darrada keena bay ka mid tahay innagana inoo keenay waxaa ka mid ah dawladdu waa wax hanti ah oo bulshadu ay leedahay dawladdu waa qaalibka wax u dhisan yihiin constitutionka nidaamka dawladda madaxa yani caynkaas oo kaleeto waa wax in la ilaaliyo ay tahay oo xataa
haddii wax la qoonsanayahay ay jiraan oo gaalnimo ka sokeeya haddii ay jiraan diinta islaamku ma ogola in dowladnimada la taabto ninkaasi madaxda ah maalan in madaxnimadiisa lagu qabsado oo la yidhahdo maaragtay ka dego ama haddii ay kuraacaynkaas oo kale haddii dulmigiisa iyo gardarradiisu ay ka sokayso gaalnimo lama ogola maxaa yeelay waxa weeye mar haddii siligaasi uu furmo suu u xirmaayo way adag tahay saa darteed culimadu waxay oran jireen culimada islamka sida sheekh Ibn Taymiyyah raximahullahu ta'ala uu leeyahay oo kaleeto yacni dowlad dhaalimad ah oo jaa'irad ah oo xargaha goosatay baa waxay dhaantaa dowladnimo la'aan soo arki maysa dowlad la'aan bay dhaantaa 60 sanadood bay dhaantaa buu ku leeyahay waa maxay macnuhu waxa weeyaan dowlad la'aan haddii hal maalin ah saacad kaliya haddii dowlad la'aan ay noqoto yacni nidaamka dhan khalkhal baa galaya inay soo noqotana way adkaanaysaa laakiin marka waa in wixii la ilaaliyo dulmigaas haba lagu jiro laakiin ruutiska iyo xididadaha laga bedelo dadku waa inay dacwadii iyo dadka fahamsiintoodii iyo waxbaristoodii iyo bulshada tababarkeedii waa in laga shaqeeyo ee maaha maaragtay in kursigaa un yar maaragtay ligliga la qabsado oo maaragtay lagu qabsado ma ahan waxaa ka mid a waxyaabaha keena ammaanku inuu faraha ka baxo ummadaasi ay ammaan weydo الدولة البوليسية دولة إن نقطة دولة أركتيدو أي كو إكتهاي يعني أمانك كلي إنه سكتو أمانكي ومعنيه يرايو مركاسي أنا دايك إنه شيء إنه ومعنيه جود أنا هين ومركاسي أي حوجة صارت دولته إنه مرق استعماشه أو واحد والبقوا يماذا أو سياسي أو فكري أو يعني كاس أي كحل لسه محي مرق يحوج يحرد يحبس يجال يا كحل لسه وحكمتها وحيابها وحبربرية كمتها وحكمت تطرفك ايديولوجيga ah oo dadku ama diin ha ku xadgudbeen ama qowmiyad ha ku xadgudbeen ama waxay doonaan ku xadgudbeen laakiin in ideology ahaan dadku ay tadarruf ay la yimaadaan oo markaas fahamkooda uu xirmo ila tadarrufku markuu yimaado qofku uu radical noqdo waxa imaanaya in aqligiisu xirmo markaas waxa galayaan qofkii yani qofku wuxuu ilaa uu isqarxiyo qofkii ma miirsanayo oo noloshiiba uu marta isla isku qoonsado dadkina uu qoonsado waxa kamid tahay marka waxyaabahaas oo dhan waxay kamid yihiin waxyaabaha keenaya innagana inoo keenay in dowladnimadii ay burburto in ammaankii uu faraha ka baxo in ilaa hadda aynu wala hoobayno oo aynu garan la'anahay meesha la ina ka jiro maalin kasta waxbaa la soo dhisaya waxbaa la qaadaya waxbaa la ridaya waxbaa la tuuraya waxbaa la keenaya waa la tuuraya maxaa keenaya sababtoo ah waxa weeyaan mushkiladii ma aynan target garayn meeshii ay jirtay waxaanu target garaynay maxay meel yani symptom ah ama haddii ay ku run yahay waxa la yidhaahdo xumad ama qandhadii baynu maanta dhan waxaanu siinayna maarta kaarjabin waxaanu dhar baynu gashanaynaa madaxweynayaal baynu samaynaynaa laakiin wax ka hooseeya ma jiraan marka in mushkiladda yani sida ay tahay loo abaaro oo xalkeeda laga raadiyo meesha uu jiro oo ruudka iyo xididka ay mushkiladdu ka qurunsan tahay halkaa laga raadiyo ayay maarata ku wanaagsan tahay ummadda subhanahu insha allahu tacaala ilaahina waan ka baryaynaa subxaanahu watacaala dhibaatada way ka baxaysaa insha allahu tacaala بارك الله فيك شيخنا waxaan joognaa qaybihii dambe ee barnaamijka sheekhow waxaa maadaama aan waxaan ka hadlayna ay tahay ammaanka iyo nimcada amniga uu leeyahay waxaa dhacda waayadan dambe qofka muslimka inuu noqdo qof markii lagu arko maxaafisha caalamka sida erboorada yani wadamada kale in laga cabsado qofka muslimka ah weliba hadday sunnada iyo ay ka muuqato soomaaligana kuma jiro waxaana dhici kartaba dadka qaarkiis diintii islaamka oo dhanba inay ka fahamsan yihiin xagga dacaayadaha la faafinaya ee terrorismka iyo cunfiga iyo wax la mid ah baynamaa diintan ay yani ku kobocday ama ay dacwadan meelo badan ay ku gaartay caalamka ka mid a fogfog ay ku gaartay qaab silmi ah oo tijaari ah oo deganaan ah oo tawaaduc leh sheekhow maxaad u malaynaysaa xaaladaas amni daradu dadku ay ka dareemayaan islaamkana lala soo aadayo qaabkee looga bixi karaa horta waxaa wanaagsan qofku in uu qirto waxaa jira haddii aadan qiranin waxaa jirana waxay noqonaysaa de waxay noqonaysaa maaragtay in aadan xalkii aadan u dhawaanin oo xalkii aadan helin dadka gaalada ah ama aan muslimiinta ahayn iyagu sida ay perceptionka ina ka qaadanayaan iyo fikradda ina ka haystaan horta iyagay ku jirta wax iyaga ku jira weeyaan iyaga kama bedeli karno inuu maskaxdoodii gallo inuu adjustment kuma samayn karno laakiin waxa aynu wax ka bedeli karnaa waa maxay waa inaga dhaqankeena
iyo sida inagu dadku inoo arkayaan iyo sumcadda diinteena inaynu ilaalino oo sumcadda dadka aynu nahay ummadda aynu nahay Soomaaliyeed inaynu ilaalino ayaa ma aragtay waxay tahay waxa aynu wax ku bedeli karno waa dhib jira weeyaan in dad muslimiina ay mar walba ma aragtay ama wax qarxin ama haddii ilaahay kun wax afduubasho ama waxyaabo runtii quluwi iyo xadgudub iyo tadarruf iyo dil iyo amni darro ah ay samaynayaan oo intii ay soo dhaaftay sidii markii hore maarta ay ku bilaabatay oo dad aan muslim ahayn baan la dagaalamayna waan jihaadna intii markii hore ay ku bilaabatay markii dambana ay soo gaartay in dadkii muslimiinta ahaa la laayo oo la qarxiyo oo ay soo gaartay intay soo dhaaftay xataa dadkii culummada ahaa maarta la laayo ay soo gaartay hadda adigoo iscunaya oo saa isku dilaya suuragal maaha inaad tiraahdo ninka Mareykanka ama Ingiriiska ah warin nabad baan ahay anigu cunfiga iyo waxaas anigu iguma jiro inaad tiraahdo suuragal maaha sababta qayb adiga ka mid ah waxaan sameynaysa marka horta dhibkaas dhib jira weeyaan laakiin sida loo xalin lahaa inkirad yani kuma xalin karno inaynu dafirno aynu dhahno maya dadka muslimiinta ah waxa ma sameeyaan kuma jirto iyaga laftoodu qaarkooda mutadarrifiinta ah dadka aan muslimiinta ahayn gaalada ah qaarkooda mutadarrifiinta ah islaamka ku attach gareeyaan oo waxay dhahaan diinta islaamka cunfigana ka imaanaya inkastoo qaarkooda wax fahmaya ay leeyihiin oo ay garanayaan in islaamka aanu ahayne farqi u dhaxeeyo dadka yani islaamka iyo dadka sheeganaya oo dadka muslimiinta ah khalad ay samayn karaan sida dadka gaaladaba ay khalad u samayn karaan waana sida ay tahay wey runtii marka horta dhibaatadaas waa dhibaato jirta weeyaan laakiin waxaa la doonayaa qofka muslimka ah in uu ogaado in mas-uuliyadii ay ka saaran tahay waxa dadka kaleeto ay isaga ka akhrisanayaan qofka muslimka waa inuu meeshu doona ha joogo qofka muslimka waa inuu dareensan yahay inuu yahay safiir ilaahay diintiisa ka tarjumaya inuu yahay waa in sidii nabigeenuba salawaatullahi wasalaamu calayhi isaga oo madiino jooga oo madiino cid ku haysata markaas maamulkeeda iyo xukunkeeda aanu jirin haddana uu diidayey nabigu sal allahu alay wasallam dad munaafiqiin oo magacyadooda nabigu uu hayo sala allahu alayh waalihi wasalam uu diiday inuu laayo oo dilo muxuu u diidayey nabigu sala allahu alayh wasalam wuxuu diidayay dadka kaleeto waa gaalada dadka la sheegaya markaasi inaanay u qaadanin nebi maxamed sala allahu alay slam asxaabtiisa inuu laayo waa maxay markaasi sumcadda diinta ayuu ilaalinaya nabigu sala allahu alayh wasalam sababtoo ah nebigu wuxuu doonayaa dadka diinta inuu usoo jiido ma doonayo dadka inuu diinta ka cararayo nebigu dadka col kuma ahan raxmad buu ahaa sala allahu alayh waalihi wasalam marka dadka muslimiinta ah waxaa waajib ku ah oo laga doonayaa in ay arinta يعني dadka kaleeto ay ka akhrisanayaan ay aad iyo aad uga taxadaraan khaasatan dadkeena joogna dhulka qurbaha joogna oo dad aan muslimiin ahayn ku dhex nool oo bulsho aynu wax badan la wadaagno oo aynu yani wax badan dhulka aynu la joogno oo noloshu ina kala dhaxayso aynu la joogno oo dad muslimiin ay joogaan oo kumanaan masaajid aynu ku leenahay oo dumarkeeni joogaan oo carruurteeni joogaan in aynu ka shaqayno sidii tafaahum iyo wada noolaansho iyo isgarasho aynu maarata ugu wada noolaan lahayn marna ma aragtay aysan noqonin inaynu inagu istifaacno keliyana aan arrintu noqonin waa inaynu khaladka saxno weeyaan mushkiladu baarak allahu fiik sheekhana waxaan ku dhex jirnaa barnaamijkeenii ma aragtaa addiin nasiixa baarak allahu fiik kelmadii ugu dambeysay ee aanu barnaamijka kusoo gabagabayn lahayd maxay tahay dardaarankaaga baarak allahu fiika horta intaana dardaarankaas uba sii gudbinba waxaa hadalkaaga hadaayo to su-aasha hadaayo waxaa igaga dhashay يعني waxaan sheegnay waxyaabaha dhabqin kara ama keeni kara amniga in aynu weyno oo ina dhaafsiin kara maaragtay ammaanka laakiin waxaa jira waxyaabo iyaguna haddii la sameeyo ammaankii oo sugmayo oo la helayo muqawimaad ah oo maaragtay ammaankii aynu ku gaari karno waxaa ka mid ah saynu hadday mar aynu tilmaanay markaynu dowladda mas-uuliyaddeeda ka hadlaynay in dowladdu ay noqoto yani nidaam mustatib ah oo ka shaqaynaya ammaanka sida ay tahayna uga shaqaynaya mushkiladdu meesha ay jirtana garanaya in uu noqdo taas waa qodob waxaa kaleeto oo ka mid ah waxyaabaha ammaanka lagu soo celin karo aynu ku hanan karno shacab xor ah oo haddii ilaahay ku roon yahay waaci ah oo kala garanaya waxa khaldan iyo waxa saxsan in la helo oo laga shaqeeyo shacabka sidii fikradda khaldan looga saari lahaa oo argoosiga iyo aanada qabiilka iyo waxyaabaha caynkaas oo kaleeta ah iyo kana ixigay in adeerkayo dembi walow uu soo galay waan qarinaya iyo reerku iskuma lahan maarta cayn waxaas in laga gudbo oo ummadda maarta wacyigelin weyn oo ballaaran lagu sameeyo si dadku ay xor uga noqdaan cabsida iyo haddii ay ku runay xataa waxyaabaha ka mid ah cabsida yani general markaynu u fiirino si guud aynu u fiirino cabsida xataa waxaa ka mid ah qofku inuu aragtidiisa uu aaminsan yahay uu cabiri kari waayo soo arki maysa cabsida ka mid tahay waxyaabaha amni darrada ka mid tahay haddii qofku uu aaminsan yahay qofka dhaalimka ah in intii lasoo qabto qofkii yani uu ciddii uu dulmigaasi u geystay loo dhiibo hadduu saa diiniyan iyo caqliyan ugu qanacsan yahay muxuu uga baqayaa markaasi in beeshu ay ceebayso maalan ninka odaga ahaa
wuxuu ka baqayaa maxay in la yidhaahdo ninkii hebel ahaabaa difaaci weyday markaa oday dhaqameednimadaadi waa laga qaadaya marka waa maxay xor ma aha ninkaasi addoon wuxuu u yahay maxay oo u hoggaansan yahay yacni fikradda qalloocsan oo beeshiisu ay aaminsan tahay ayuu maarata u hoggaansan yahay marka waxaan u baahannahay bulsho xor ah oo madaxeedu uu furan yahay oo saxda iyo khaladku sida ay tahay u abbaaraya sida ay tahayna ugu dhaqmaya cidna aan uga baqaynin in la helo waxaa ka mid ah waxa la yidhaahdo waxyaabaha keeni kara in ammaanku uu sugmo bulshada in ay kalsooni ay hesho kalsooni ay ku qabto nidaamka qadaa'iga ah garsoorka inay cadaalad uu yahay inuu cadaalad yahay oo uu sugan yahay oo garsoorkii si wanaagsan gartii loo soorayana qofku uu ku qanacsan yahay maxaa yeelay qofku markii qofkiisii la dilo ama xoolihiisii la dhaco ama dhulkiisii laga qaado ama haddii la ku run yahay tacaddi lagu sameeyo xadgudub lagu sameeyo haddii uu og yahay jiho inay jirto meel uu la abbaarayo dulmigaasi loo geystay oo markaasi soo qabanaysa ciddii dulmiga geysatay dee wuu aadaya qofna intuu qori qaato markaasi khatar kale ma sii gelayo laakiin qofku hadduu og yahay arrintaas inaanay saa ahayn oo cid haddii ilahay ku run u garaabaysa aanay jirin oo gardarrada qofkaasi u geystay garab og ay tahay soo arki maysid wuxuu markaasi ku dhaqmayaa sharciga hadda aynu sheeganay oo shantaada farood oo shantaada calaacalo sharcigu wuxuu kaa reebi waayo shantaasi ha kaa reebto yacni gacan buu ula tegaya markaas ayaa imanaysa marka taasna waa lagama maarmaan weeyaan marka nidaamka dadku inay ku kalsoon yihiin dastuurka iyo qaanuunka lagu dhaqmaya inuu yahay mid cadaalada oo saxa oo diinta ilaahay ku salaysan markaynu ummad muslimiina nahay taas waa qodob fulinta ninka fulinaya oo xaakimka garsooraha halka maxkamadda ka soo jeedana inuu yahay ninaan laaluush qaadanaynin oo aan isaga laftiisu dhaalim ahayn oo ilaahay hortiis subxaana wa tacala dadka u kala saaraya dadku inay og yihiin midda saddexaadna markii uu xukumo isaga laftiisu in la fulinayo xukumkiisii qofku inuu ku kalsoon yahay saddexdaa rukun haddii la helo ammaanku waa sugmaya shakal aan weeyaan marka si aynu taa u gaarno waxaynu u baahan nahay dadka nukhbada ah xulka ummadda soomaaliyeed inay kacaan oo ay fakeraan oo hal abuur ay yeeshaan oo ay yacni keenaan xal daraasaysan oo la lafaguray oo haddii ilaahay ku run yahay laga saaray wixii ma aragtay ismootiis ah oo dhan laga saaray oo si saxa u abbaaraya ummadda soomaaliyeed dhibaatada haysata sidii looga qaadi lahaa waxaan markaasi kusoo gabagabaynayaa anigu dardaaran aan ku dardaarmayaa 4 dhambaal baan dirayaa dhambaalka koowaad wuxuu ku socdaa dowladda waxaan leeyahay haddii aad tihiin kuwa taladu ay gacanta wax ugaga jirto ama talada wax ka haya oo yani sida aad dowlad u sheeganaysaan oo la idiin moodayo oo haddii ilaahay ku run yahay jaakaduhu idinku xiran yihiin madaxweynenimada ah ama wasiirnimada ah ama yani sargaalnimada ah ay idin xiran yihiin haddii ay sax tahay oo taladu ay gacanta idinku jirto waar niman yahow intaad fadhiisataan waxaad abuurtaan fikrad iyo hal abuur iyo initiative iyo vision ummadda soomaaliyeed ammaankeeda lagu sugi karo intii hadda ka dambeysay burburkii dowladnimo yani 1990kii waxa weeyaan mushkiladda inaa haysato oo ugu ballaaran waa amni darro weeyaan horumar waan gaari lahayn gaaja inama qabateen dhulkeena waa dhisan lahayn buundooyin iyo haddii ilahay ku biyo xireenno iyo haddii ilahay ku run yahay beero iyo aseentooyin iyo wax walba waynu samaysan karnaa waynuna samaysanaynaa laakiin maxayna ka maqan nin walba wuxuu ka baqayaa ammaan darro ayuu ka baqayaa in la dilo ayuu ka baqayaa in laga boobo ayuu ka baqayaa in la xado ayuu ka baqayaa marka ammaanka iyo horumarka iyo tijaaradu waa isku xiran yihiin saa darteed ayaa ilaahay subxaana wa tacala nabillahi ibrahim markuu ka hadlayey waatuu yidhi ilaahay subxaana wa tacaala markuu nabi ibrahim calayhi salaam rabbi ijcal hada albalada aaminan maya aayaddan u socday waxa weeyaan يعني wuxuu yiri ayada markuu rabbi ijcal hada baladan aaminan warzuq ahlahu min athamarati markana wuxuu leeyahay nabi ibrahim calayhi salaam waj'al afidatan min an-nasi tahwi ilayhim يعني afidat min an-nas soo arkimaysid awalam yaraw يعني anna jacalna lahum haraman aaminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay meel kasta ayaa mirihi looga keenaya tijaaradii baa u imaanaysa maxaa yeelay waxa keenaya maxay ammaanka keenaya haraman aaminan yujba ilayhi thamaratu kulli shay soo arkimaysid ammaanka haddii la sugo ummadda soomaaliyeed inaad beriisiisaan idinkama rabaan inaad baasasiisaan idinkama rabaan cambulo inaad afka ugu kurtaan idinkama rabaan waxay doonayaan waa maxay waa in ammaankooda la sugo aragti aad abuurtaan dowlad baa tihiin magacii waad sidataan wax uun kolley arrintaas ka mid a waa tihiin laakiin waxaa loo baahanya waa maxay inaad aragtidii abuurtaan iyo bayskii ummadda soomaaliyeed ammaankeeda ay ku sugi lahayd waqti dheer ba ha qaadato sanadaha qaadato arrintaa turxaan bixinteeda iyo ka shaqaynteeda ha qaadato laakiin waa in aad aragti يعني qodobo iyo targets 1 2 3 4 leh
oo sidaa loo soconayo inaad maarata keentaan dhambaalkaasi waa xagga dowladda qolo aan oran karo nukhbo ama aan dhaho xulka qaranka ummadda Soomaaliyeed xulka waxaan u naqaan kuwa kubadda iyo ciyaareen u naqaan laakiin anu waxaan oran lahaa xulka qaranka ummadda Soomaaliyeed waxa weeyaan waa dadka wax garadka ah oo aqoonta leh oo daacadda ah oo Soomaalinimada iyo islaamnimada iyo Soomaalinimada ay daacadda ka tahay oo doonaya u damqanayo ummadooda aragtidana leh ninku inuu damqanayo cabaadaya kaliya waxba tarayso oo uu arkayo dhibaatada laakiin inuu aragti keeni karo haddaan aragti keeni karin amaadkaaga waxba ma tarayo labadaasina waxba tari mayaan haddii aadan diyaar u ahayn inaad fulisid wixii aad arkaysay saddex shard waa laba maarmaan weeyaan qofku inuu damqanayo soo arki maysid iyo inuu aragti arko oo vision uu leeyahay oo arkayo mushkiladu meesha ay ka jirto deetana inuu ku dhaqaaqo allahumma arina alxaqa xaqan warzuqna itibaacahu nabigu ku ducaysan jiray sala allahu alayhi wasalam ilaahay xaqa xaq nootus intaas kuma filla laakiin warzuqna itibaacahu waxaad nagu irsaaqda ilaahayow oo aad nahansiisaa in aanu ku dhaqanno oo aanu maarata raacno ummadaas marka waxaan oran lahaa niman yahow ummadda Soomaaliyeed xulkeeda qarankow waxaad samaysaan hammi yeesha deetana waxaad hanataan yani initiative-ka hanta oo ummadda Soomaaliyeed hal abuur u keena hal abuurkaas markaa u keentaana fuliya oo ku dhaqaajiyo ummadda hogaamiya waxaad u baahan tihiin ummadda Soomaaliyeed u baahan tahay inay israadsadaan ma ahan in beel kaliya ka soo jeeda ama gobol kaliya ka soo jeeda kaliya inay waxalin karto ummadda Soomaaliyeed inteeda nadiifka way badan yihiin intay iska dhaafaan meelaha ay hulalka iyo salka ay kula jiraan oo warka uun la soo tabiyo oo ilka lagu soo qoro ama TV-ga laga sheego iska daawanayaan tafarruj ay saa u daawanayaan kaliya inay ka soo dhaqaaqaan oo godka laga soo baxo baa loo baahan yahay kooxaha iyagu maarta dhibaatada iyo khalkhalka ku wada waxaan oran lahaa war ilaahay ka baqa subxaanahu wa tacaala ilaahay uga baqa ummadda Soomaaliyeed oo walaalayaalow haddii damiir islaamnimo uu idinku jiro war khaarijin iyo dil iyo ummadda in la laayahay xal noqon mayso ammaanna ma sugayso horumarna laguma gaari karo diinna hil u noqon mayso walaalayaalow intaad dib ugu noqotaan fikraddiinna ilaahay uga baqa subxaanahu wa tacaala ummadda Soomaaliyeed oo dhiigga aad daadinaysaan iyo qaraxa maalin walba qarxaya iyo mushkiladda meesha ka saara iyadaba ummaddani markii horeba qabiil isku haysto teeda u yaabanayd iyadoo taas in la xaliyo loo baahnaa baadba idinkii uga darteen oo waxaad noqoteen maarta mushkilad kaleeto kaba sii weyntii hore marka taasna waxaan oran lahaa kooxaha iyagu maaragta dagaalamaya oo dhibaatada maaragtay abuuraya oo wax qarxinaya oo wax dilaya oo wax shirqoolaya inay ilaahay uga cabsadaan subxaanahu wa tacaala ummadda Soomaaliyeed oo markaasi fardiga caadiga iyo hogaanka dhaqanka iyo dadka haddii ilaahay ku ron yahay wax garanaya ummadda Soomaaliyeed shacabka waxaan oran lahaa war walaalayaal idinkuna gacanka hadalka iska daaya oo haddii dadka bini'aadamku isku xadgudbay dhibaato way timaadaa waxa aynu la harsan weynay oo dhulkeenni aynu uga soo cararnay oo qof walba oo Soomaaliyeed uga soo cararayo shanta qaarad uga talaabaya waa maxay waxa weeyaan qof walba wuxuu ka baqaya in xabad la isaga dhufto maxaa yeelay in adeerkiisa wax dilay war in adeer hadduu wax dilay waa in la helo qaab lagu xallin karo oo wada hadal ah oo dawlad iyo nidaam iyo reer magaalnimo ah ummaduhu yani xeer bay samaystaan oo xeer bay fuliyaan oo qaabkaasi u dhaqmaan laakiin qaabkan ah ma aragtay qofkii far ku taaga laba loo taaga oo qofkii saddex ku taaga shan baa loo taaga qaab soconayo oo lagu noolaan karo adduunka ma ahan waynu tijaabinay waynu aragnay ilaahay inuu u toobadkeeno subxaanahu wa tacaala ilahay waxaan ka baryaa subxaanahu wa tacala ummadda Soomaaliyeed amni iyo ammaan iyo istiqraar iyo silmi iyo islaam ilahay inuu siiyo subxaanahu wa tacaala dhibaatada ay haysatana ilahay uu ka qaado subxaanahu ummaddeedana ilahay subxaanahu wa tacaala wada jir iyo walaaltinimo iyo isku soo hilow ilahay inuu siiyo subxaanahu wa tacaala dawladdeedana ilahay inuu hanuuniyo oo toosiyo oo xaqa uu tuso oo ilahay uu ugu gargaaro subxaanahu wa tacaala xaqaas inay fuliyaan ayaan ilahay uga baryaynaa subxaanahu wa tacaala hada wabillahi tawfiiq barak allahu fiik jazaaka allahu khayran sheekh cabdisamed xaqiiqatan barnaamijka xataa waqtigiisii waa uu nala dhaafay runtiina waa arkaysaan qodobada muhiimka ah iyo nuqadka sheekha uu ka hadlayo ilahay waxaan weydiisanaynaa inuu naga dhigo aladiina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana waxaan ku darsan lahaa oo dhambaalada sheekha uu dirayo aan ku akidi lahaa hubbaa waddanka yaga lagu soo guraa oo jiho walba kaga yimaada dadkoo dhanna waa wada hubaysan yahay ha loo raadiyo xal hubkaasi sidii lagu ururin lahaa oo gacan aamin ah oo dowladeed ama nidaam uu dhulka hubkaas ugu noqon lahaa hubkaasi intuu yaacayo kusoo maaragtaa qubmayo waddankii ganacsatadu ay shaqo ka dhigteen inay soo waaridaan amnigu waa naga fog yahay intaasaan ku dari lahaa
kaas wuxuu ahaa barnaamijkeenii addiinu nasiixa. barnaamijkan waxaa idinla socodsiinayey anigoo ah cabdiraxmaan maxamed jaamac gacal. waxaa igala qayb galay sheekh cabdisamed cabdulla cismaan oo ku magac dheer xoday. waxaa barnaamijkan ma aragtaa sahla masjidka alrisaala islamic center. waxaan idinkaga tegayaa dardaaranka shiikha ee wanaagsanaa alla ka cabsiga lahaa, ilaahay inuu nagu anfaco oo aan noqono kuwa ilaahay ka cabsada iskana dhowra xaqa darada iyo in dhiigga la daadiyo. hada wabillahi towfiiq wallahu aclam bisawaab. حلقات العودة بستان يتنزه فيه الوجدان، حلقات تخرج أجيالا تتباهى بهم الأزمان. حلقات العودة بستان يتنزه فيه الوجدان، حلقات تخرج أجيالا تتباهى بهم الأزمان، تتباهى بهم الأزمان، تتباهى بهم الأزمان.